بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد. أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال كسر وهذا channel كيغا حبيب عبد الرحمن. فضلا هداد كعصب تهي سبسكرايب تسارو قنبليل كنفرو سي أي برامجتو هدبا أي كوسو قاران إن شاء الله تعالى بإذن الله المولى. ما أنت وحن كهد للدونا موضوع آد أمهما كنا سابسا وحلو يقانو سحر الخسارة. ما هو سحر الخسارة أو سحر منع تعطيل الرزق أو العمل أو الوظيفة؟ قفك سحرك لو سميو كتسينا إن للدمعي أما لغو لفتي سحر وكينا ينرشيس خسارو أما سحر قفك نرشيسا لغاقا منعنايو تعديل الرزق رزقي لو قري قفك إساقو أقرا رزقيسي أيا هدنا وحا كحيريسا ضروينك كلا دوان وانا وح معروفة. أما قفك إن عمل كيسي إيا الشقديسي لغا حنبو سيدا أين أغاسو هذا الني هدا كهر سحرك قفك جوركيسي لغا حنبي أو تعديلك لغا دفتي سيدا قفك السحرك لغا صرفيي عافيمات كيسي أو قفك لحنوجي أو حنون بقفك وسان كبحينين با. إذن سيدا دبنان با أغو نرشتان أذيغو أو وحول با إلهي كو قري oo arsaaqdaadi iyo guurkaaga iyo noloshaada ay ku qoran tahay ayaa marar fara badan waxaad ku waayeysaa caqabado noloshaadi soo waajahaya xataa waxa dabiiciya oo diinteenu ay inoo sheegaysaa qofka isaga oo arsaaq u qoranta ayuu dunuub galaya dambiye caadi u sameeynaya ilaahay subxaanahu wa ta'ala arsaaqdiisu kala noqonaya lidaalika waxa la yiraahdaa dunuubta zinada qofku inuu khamra cabo qofku in uu nolosh yani waxyaalaha nolosha qofka ka xanibay kamid tahay xataa sida caadiyan ku hadlaynaa. marka waxa soo dhan waxaan idin fahansiinayaa inaydan is oran qofka sida arsaaqdiisa looga xanibi karaya sixir seebuu xanibi karaya dabcan uu xanibi karaya waana laga yaabaa inuu ku haysto calaamadaha kan markaad isku aragtid. subxaanallah ikhwaani, calaamadaha intaan aanu guda galin sixirka qofka khasaaro noloshiisa loogu sameeyo dhowr arrimood mid buu noqdaa. in qofka sixrul marshuush loo sameeyo oo markii hore gurigiisa loogu rusheeyay ama goobtiisa camalka loogu sameeyay oo loogu rusheeyay ama loo agdhigdhigay. rusheyn oo kaliya ma aha, ciid bay noqon kartaa, hilib loo soo qaado, hilibka la yaryareeyay ukun bay noqon karaysaa, warqaday noqon karaysaa, warqado la dhigdhigay. subxaanallah, ma fahmi karaysid waxay noqon kartaa rusheyntaas. marka marshuush haddaad maqashid noocyo fara badan buu kala baxa, taa way noqon karaysaa. wuxuu noqon karayaa sixir al-ma'kuul, sixir lagu cunsiiyey ayuu noqon karayaa oo caloosha ku dhex fadhiya wal ciyaadu billah. waana inta badan qofka marka dambe noloshiisa waxyaalo fara badan ka manciya. wuxuu noqon karayaa qofka in sixirkaas meel loogu xiray, meel loo rakibay, sawirkiisa in lagu xiray oo sawirkiisa inta lala degto wal ciyaadu billah lagu sameeyay. idan waxyaalo fara badan buu noqon karayaa. wajhu nadarka guud waad ila fahanteen. ikhwaani, calaamadihiisan doonaya inaan wax yar idinka tilmaamo. sixirkaasi qofku calaamadda uu yeelanayo ee koobaad waxa weeyaan waa ash-shu'uuru bil-kasal ash-shadiid 'inda istayqaad min an-nawm fi maw'id dhahaabi li'amalihi. qofku in uu daal iyo caajis iyo hurdo xun uu dareemo waqtiga uu shaqada leeyahay. maalmaha qaar off baa tahay, maalmaha qaar weekend baad leedahay, maalmaha normal baad iska tahay, waad faraxsan tahay, xilli horaad toosaysaa, noloshaadii iyo jadwalkaaga baad samaysanaysaa, jimicsi baad galaysaa, firfircooni heer aad ka qabtid, gurigaaga baad ku dhex meeraysanaysaa.
laakiinse afarta cishe shaqada culays aanan hore kuu haysan baa ku fuulaya. allahu akbar. culays aan jiri jirin baa kuu imaanaya. daal fara badan. shaqada tan maxay tahay? way ku dhibtay hariga habeen. maxay tahay waxa kan business ma iska gashid iska daa. waxaad jeclaanaysaa qof inuu maanta kugu yiraahdo shaqada faraha ka qaad business iska gal. wax kale marmarsiyo kale ama waad xanuunsan tahay ma iska joogtid. taasaa niyadda lagaaga soo tuuraya caajis seeraad ka qabtid. marka koowaad taasaa dareemaysaa. الشعور بالتوتر والضيق الشديد عند ولوج المسحور لمكان العمل. marka qofku goobtii shaqada uu tago isagoo heerka iyo xaaladda ku sugan in uu dareemo laab ciriiriya, stress, buuq, warwar ku furma isla markiiba. calaamadda saddexaad uu qofku yeelanayo in uu qofku isagoo shaqadii ku dhex jira oo goobtii shaqada tagay in intaasoo fikir lagu soo tuuro. shaqada tan xun, shaqada tan careless-ka, waxba laga faa'iidi maayo, mushaharkeeda habsaam. hadda intaasoo dhan ma jiraan, laakiin wax iska dhaadhicinaysid waxbaa lagugu soo tuuraya. 15 go'aan adigoo gaaray baad maalin walba shaqadaadii ka soo noqonaysaa. subxaan allah. calaamadda saddexaad. علامة أفراد الإحساس بالخمول الشديد أثناء قيام بالعمل. وأسلتي هرأون بيتاني لم نقول إن الدرين عاجز وحنقول عاجز بي وضع قصين. سبحان الله. حدوث خلافات كثيرة ومتعددة وغير طبيعة بين المسحور والزملاء والمرافقين له بالعمل. على مدة ومهم إن أدوغاتد خلاف كما بحيث dadka kula shaqeynayaadan nabad gelinaynin waad iskhilaafaysaan. mararka qaar adigoonan hadlinba iyaga ku khilaafayaan, mararka qaar adigoonan hadlinba iyaga ilxun kugu soo eegayaan. maxaa keenay baad isleedahay? ama adigaaba la dagaalamaya, khilaaf baadan ka baxaynin har iyo habeen. waa isdagaalaysan, maamulkii baad isku dhacaysaan, warqad ordaysaa kuu imaanaysa, mushaharkii baa bilaa sabab lagaaga goosan, lagaala habsaamaya. shaqaalihii kale mushaharkii helaba adiga dib doona lagaala habsaami karaya. dagaal har iyo habeen, khilaaf khilaaf khilaaf. taraagley, dadka taraagleyda ah waxaa dhacda marar badan. mar walba taraag dadka u shaqeeya waa qisooyinku ka cawdaan. qofkay taraag istiraado fuulba waa laga tuuraya, war nadhaaf. 15 taraag buu wiigan isku maraya. tagsigii ummadii waxa laga yaabaa inuu jidka ku dajiyo qofka tagsiileyda. warbax qofka ku yiraahdo intay khilaaf aba dhaximaanay intii jidka ay ku sii socdeen qofka tagsiilaha uu badajinaya wixii lacag ba kaama rabo. waxyaalaha ikhwaani caanka ku ah waxaa ka mid ah inuu qofkani sixran yahay. xaaladda macruufka ah qofku isagoo oo shaqeeyay oo dhididay oo wax qabtay bay qofka isqabanayaan. isqabashadaas iyo wuxuu isku xiray inuusan lacagti qaadanaynin. isqabashadaas iyo inuusan lacagti qaadanin eesh tadakhal maxaa sababay? adiga qofkan waad isqabateen, lacagna waad leedahay, adiga lacagtaada qaada ma garan weydo. taasay caan ku tahay. waad shaqeynaysaa lacagtina waa badiidaysaa haddaad doontid. iska bax baad leedahay. good out. تعطيل العمل للأسباب غريبة. إن شقة جوجين لغاغا سميو أسباب آذن قرنين. الله أكبر. سبحان الله والعياذ بالله. مر والب أو آد شقه الشد شقه دي والغا عيرين اياه. قفك قف أغو وناكسن باتها أغو سوك اللهاد بدن أغو دذالك بدن هادنا موج دادكي وحكو تصيا والغو عيرين اياه. ورقد أردسا كو إيمانيسا والغو ظلمين اياه. وحبال لغو وصوى قبانيا. سبحان الله. الله بصدح عفا. الرغبة الشديدة في مغادرة العمل. هوران تاو صوت الماب. قفكو إن أمر والبك فكر إنو الشقادة اسكاقاتكو. إنو قفكو حيرو شقادة. إنو قفكو قريقيس اسكاقالابتو. علامات كقار وقفكو يالانا يوحويان haddii waxaan ka hadlayo qofku ra'sal maal oo business marka isagu leeyahay dadkii hore shaqaale ahaayeen laakiin dadkan aan ka hadlay hadda waxa weeyaan waa haddii qofku uu business abuuray ganacsade uu yahay waxyaalaha ugu badan ee uu yeelanayo calaamadaha ugu badan ee uu yeelanayo waxa weeyaan kathratu tanqulat ma bayna qofku inuu halkan ganacsi ka furo oo uu xiro haddana ganacsiga meel ka furo uu xiro haddana ganacsigan bedelo ganacsi kale u wareego haddana ganacsi to ganacsi uu xiraya uu furaya uu xiraya uu furaya calaamadaha ay dadkan yeelanayaan waxa kamid oo macruufka ah qofku inuu jeclaysto inuu wadanka ka guuro
meesha uu degan yahay iyo meesha uu joogo mar walba wuu guuraya. marna Mareykan, marna Turki buu sii socdaa, marna Yurub buu soo socdaa, marna Afrika buu sii socdaa, marna Kenya buu sii socdaa, marna South Africa buu sii socdaa, marna Dubai buu sii socdaa qofka. waxaad arkaysaa kii shalay isagoo bilaabay travel agency haddana maanta ka shaqeynaya buriya bariis ka shaqeynaya, kii buriya bariis ka shaqeynaya haddana daawo hadda ka shaqeynaya. tanaqul adduunkii oo dhan wuu soo wada maray. 5 bilood ba adduunkii oo dhan business ka soo furay. calaamadaas uu yeelanaya. qofku calaamadaha uu yeelanaya waxaa ka mid ah in uu cancel gareeyo contract kasta uu galo. hadduu office kiraysto oo rental uu qofkaasi galo, isla markiiba rentalkii wuu xiraya. contract ka soo qaad waxa lagu heshiiyey qofkan inuu bishiis ka bixiyo $500. waa rental office weeyaan. rental office kaas $500 ku dhufo 12 bilood. waa imisa? يعني meelaha iska dheh $6,000 bay ku sii dhawaanaysa Soomaaliya baadama aanan tirada dusha ka hayn. $6,000 lacag ku dhadhow ayaa qofka sanadkii kontaraaga laga rabaa. 2 bilood markuu ku jiro ayuu qofkii cancel gareynaya. kontaraagina maxaa ku qoran? qofkii inuu san ka bixi karaynin. haddii uu baxayan waa inuu lacagtii shubaa ama lacagtiisa ka tanaasula ama kirooyin ku dhamaysta. waxaad arkaysaa qofkii meel buu kiraysanaya ka bacdiina 2 bilood markuu ku shaqeeyo uu iska xiraya. markuu iska xiro saasay kaga dhamaanaysaa. ama qofkii waxa loo yaqaano uuba ka tanaasulayaaba ama qofkii dood buu keenaya. adigu wuxuu rabaa qofkii inuu cancel gareeyo, kana iga xumaaday, kana sidana waxaan halkan aan aaday wadanka ku khaldamay saas oo kale qofku inuu noqdo. wal ciyaadu billah. calaamadaha ikhwaani uu qofkan yeelanaya waxa weeyaan xataa haddii uu ganacsigiisa iyo lacagtiisa dhul geliyo oo bari ka maalin isiraahdo dhulkaagi soo iibso, 50,000 buu kuu gaaray, 60,000 buu kuu gaaray, 70,000 buu dhulkii kuu gaaray. maanta ka faa'iideyso oo qofka masxuurku mararka qaar lacagta uu hayo business wax meel buu ku darsadaa, qofna dhul buu gashtaa. dhulkiisii lama iibsanayo. waxaa cajiiba oo qariiba oo la yaab leh, dhulkii ku xigay ee nuska ahaana waa la iibsanayaa si kasta uu wada xun yahay. kiisi 4 wada haystana isagoo 50,000 qofkii u gaaray buu barina wuxuu leeyahay ma doonayo. yani waxyaalaha cajaa'ibta ka mid ah qofkii dhulkiisi lamaba iibsanayaba. way dhacdaa. maxaa dilaalkii uu ku yiri war $1,000 baan ku siinayaa dhulka ii soo iibi, maba soo iibin karay dilaalkan. culays baa fuulay, lama helayo. santarkii magaalada guriga ku yaala kii ku xigay waa la iibsaday, kanna waa la iibsaday, kiisa laakiin lama taabanayo. ikhwaani qofku calaamaduhu yeelanaya waxaa ka mid ah in mar walba diyaacu lamwaal in ay xooluhu ka lumaan. $100 buu jeebada gelinayaa, wax kala baxay garan maayo. gurigiisa ayuu qasnad gashanaya, lacagti meele martay garan maayo. $1,000 hadda meel ka soo qaatay, $1,000 waa ka lumaysa. halkanuu marayaa, haddana halkanay aadaysa. mar walba lacaga aan tiro lahayn baa qofka ka lumaya. 1 iyo 2 la iskugu celinayaa. waxaa laga yaabaa qofkaasi in uu mar walba bixinayo isagu isma oga gooruu siiyey. qof taksiilaa baa hal meel kugu geeya $1, $20 baad iska siinaysaa. lacag baad meel kaga kacaysaa. waxaa ku qabanaysa mararka qaar sarsarka yara lacagaha yara kuu soo noqda ma iska daadisaa. ma sadaqaysanaysa hadda. waxaad ku fikraysaa haddana inaad iska meel dhigtid. waa calaamaadka macruufka ee qofkaasi loo sameeyey sixirka loo yaqaano tacdiil alcamal walciyaadu billah. qofku marar badan wuxuu arkayaa riyooyin aad u halis leh. sidoo kale waxyaalaha qofkaasi uu caan ku yahay khaasatan raggu, maalinta salaada jimce culays baa laga saarayaa. salaadaha kale wuu aadi karaa laakiin salaada jimce ma aadi karayo. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع. إلهي بالقرآن كيسا ساقوله. يعني قفك إلهي أمر وحكسينا يا مالن تجمعين وقناع سقيسة يا هوله سفرها كقاضي. qofkaas maalinta la yiri ganacsiga ka tagay isaga ganacsigu sameyn karaya ama yuu san basamay laakiin salaadii jimca ma rabo laana ilaahay laba isku xiray salaadii jimca in la aado wadarul bi' laga tago ganacsiga
marka salaadii laga yimaadana waxa weeyaan qofku fas'au ila dhikri ya ayuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله إلهي بقرآن كيسا كله marka salaada uu qofku ka soo baxo oo uu guto dhulka Ilaahay qof walba ku faafo wabtaguu min fadlillah wuxuu rabo oo ganacsi iyo nolol ha samaysto lidaalika ma anta jimci qofka culayska saaran ikhwani fillah idan say isku dabaqaysa bal hada fiiri Allahu akbar idan ikhwani xanuunkaasi waa wax jira ha qariibsan ha fogaansan ha isdihin waxani kuma iimaan karayo wal ciyaadu billah sixirku maanta wuxuu ka fududaaday sida biyaha ummadii way isku gumaadayaan waxa laga yaabaa qofka ku sixray inuu san ka fogaan aqaaribtaada yahay uu leeyahay bal ganacsi buu sameeyaa hebel uu dhoofay hebel mushahar buu qaata anama qaato midad maalin $1 siin weyday inuu maalinta kadib go'aan gaaro inuu ku sixro ka shaqada kula shaqeeya way dhacda inta badan qofka shaqada kula shaqeynaya laftigiisu inuu ku xasto oo yiraahdo hebel uu mushahar badan yahay ama kursiga uu ku fadhiyo damac garo way dhacda kursiga ku fadhiyo qofkan hungureey Allahu akbar idan waxa loo yaqaan ikhwani fillah halaga taxadaro halagu baraarugo xanuunkaasna halaga hortago sixirkana hal iska daaweeyo sixirkana yaan la isku fiirsan ya ikhwani fillah walaalahaygayo sixirka yaan la isku fiirsan qof walbana ha iska daaweeyo ilaahayna hal la bariyo ilaahay inuu inaga ilaaliyo inta uu hayana inuu ilaahay ka shaafiyo har iyo habeen ha lagu duceysto adkaartii weysadana ha lagu dadaalo wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad